اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. maanta way taariikhdu tahay 28 bisha Oktoobar 2020. waxaan jecelahay inaan bayaamiyo oo baraxo hadal aan ka jeediyay 17 bisha magaalada Frankfurt ee waddanka Germany. hadalkaas oo runtii la saaray turjumaad khaldan meel aanan ku soconna loo jeediyay ayaan jecelahay inaan fasiro oo faahfaahiyo. horta waxaan marka hore jecelahay inaan hoosta ka xariiqo inaan anigu ahay qof islaamnimo ku dhashay, islaamnimo lagu barbaariyay, rajaynayana inuu ilaahay la kulmo isagoo islaam. sidaa daraaddeed intaa waxaan u sheegayaa dadka islaamnimadeedii calaamad su-aasha saaray. arrinka labaad ee aan jecelahay waxa weeyaan maalinta aan hadlayay shirka aan ka hadlay waxaan ka hadlay qodobo aad iyo aad u tiro badan. waxaan ka hadlay waxbarasho, waxaan ka hadlay caafimaad, waxaan ka hadlay leyd, waxaan ka hadlay deegaan, waxaan ka hadlay in alla inta dowlad hoose ay mas-uul ka tahay ee hoos timaada. intii aan waxaasoo dhan ka hadlayay runtii lama soo qaadan intii wanaagsanayd oo dhan ee hadalkaygii qayb yar oo ka mid ah oo dadka siyaasad ahaan iga soo horjeeda ama dad un ujeedo gaara lihi iyar oo ka mid ah inta la soo gooyey ayaa bulshadii lagu dhex faafiyey. bulshadiina hadalkiiyagaan hubsan ayaa qof waliba dhankii uu doonayay ula kacay. markaan dad islaam nahay, diinteenna islaamku waxa ay ku dhisan tahay is-ixtiraam, is-xushmayn, is-qadarin iyo qofka islaamka in cirdigiisa la dhowro. ilaahayna qur-aankiisa waxa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin. marka qof faasiqi war idinla yimaado iska hubiya ayaa ilaahay ina leeyahy subxaanahu wa tacaala. marka anigu horta waxaan jecelahay inaan marka horeba caddeeyo culimadu waa xidhahayga, culimadu waa warasatul ambiyaa weeyaan, waa dhaxalkii ambiyada. xushmad, ixtiraam iyo qadarin ayay iga mudan yihiin. marnaba dad culimada iyo dadka kale ee muslimka ahba iyo dadka caamada ahba cidnaba inaan aflagaadeeyo maxaan ku dhahday uma dhalan, laygumana soo korinin. arrinka aan ka hadlay wuxuu ahaa arrinka guddiga la magac baxay wanaag furista iyo xumaan reebista. ummadiina waxaa laga dhaadhiciyey inaan ka hor imanayo aayaadkii kalaamullaahi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar. anigu aayaddan kama hor iman, aayad qur-aana oo kalaamkii ilaahayna ma beenin. marka laga hadlayo wanaag furis iyo xumaan reebisna ummadda islaamka oo dhan, ummadda nebi maxamed oo dhan ayaa horta ilaahay la hadlayaa ee ilaahay koox gaara lama hadlaynin. haddiise ay dhacday oo ay dad waajibka iyo xilka isu xilqaameen waa ku taageeraynaa. laakiin waxaa jira de bashar baynu nahay. culimada wanaag furista iyo xumaan reebistuna waa bashar oo macsuumin maaha. sida aan anagu khaldami karo ay iyagana u khaldami karaan. inaynu de wadaad iyo waralleba istoosino waa waxa aynu islaamka ku nahay ee ummadda u nahay. marka khalad wuu jiri karaa, marka ana waan khaldami karaa, culimadana way khaldami kartaa. marka horta anuta culimada kaba hadli maayo khaladkooda oo iyagaanu dhaafayaa. laakiin waxaan jecelahay anigu aan nuxurkeyga kusoo gebagabeynayaa cid kasta oo hadalkaygii taabtay oo khudbadaydii maalintaasu ay taabatay. marnaba anigu mararka qaar waxaaba dhici karta adigoo wax saxaya oo wanaagooda inuu hadalku kaa qalloocdo. laakiin anigu waxaan jecelahay inaan baraxo oo bayaamiyo. cidnaba kuma duraynin. ciddii xumaan u qaadatay hadalkaa ama maxaan ku dhahday inuu taabtayna halkan maanta waxaan diyaar u ahay inaan raaligelin ka bixiyo. waxaan kaloo jecelahay inaan cafiyo cid kasta oo aniga igu gaftay oo si shakhsiga igu gaftay oo cirdigayga iyo qofnimadeedaba durtay. intaasaan kusoo koobayaa. halayso cudur daaro. ciddii kale ee wax iga tabanaysaa anu marnaba ma aaminsani horta inaan ilaahay aayaadkiisa ku gafiyo ma aaminsani. laakiin ciddii ilaahay ummaddiisa ah ee wax iga tirsanaysa waxaan leeyahay cafiya. anigana cafis baa iga tihiin.
عدي أو أرنكاس تابتنا مركلة وانكرها لقلنيا انت أصلا هذا الكيان كسو كوبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.